kulanto wanaagsan saaxiib yaal soo dhawaada qaybtan waxaa ku eegi doonaa maandeerada ku saari doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta loogu yeeray xerada xalane ee magaalada muqdisho. madaxweynaha ayaa lagu soo waramayaa in halkaas loogu yeeray sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud looga dhaadhicin lahaa in istiraatiijiyadda ciidanka ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab guud ahaanba u bedelo, isla markaana ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed uu ku soo kordhiyo rag waxtar u leh isla markaana hogaamin kara guulana wax ku ool ah ka keeni kara dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab. xogtaas ayaan rabaa inaan kula wadaago. haddii ay tahay markii ugu ay soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ila channelka, like ii saartid si aan u helo saaxiibada adigoo kaleeta ah. like waxay naga caawinaysaa in barnaamijkeena meel leer gaaro. aad iyo aad mahadsan tahay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu tagay xerada xalane, isla markaana waxa uu kulan kula qaatay halkaas midowga Yurub. madaxweynaha ayaa lagu soo waramayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaasi loogu yeeray sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax loogu weydiin lahaa dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab halka uu marayo iyo guulaha ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ay ka soo hooyeen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa midowga Yurub waxa uu hordhigay in ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ay al-shabaab jab xoogan gaarsiiyeen, isla markaana deegaano iyo degmooyin badan ay ka saareen, balse maalmihii la soo dhaafay kooxda al-shabaab ay dib u soo xoogeysteen, isla markaana ay dib u soo qabsadeen deegaano iyo degmooyin badan oo markii hore kooxda al-shabaab hore looga saaray. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa warbixinta uu hordhigay midowga Yurub sidoo kale waxa uu ku sheegay in ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin wax walba oo ka caawin kara dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab, isla markaana ay u baahan yihiin in si weyn looga taageero kooxda al-shabaab dagaalka ay kula jiraan. sidoo kale madaxweynaha wax laga weydiiyay in dhawaan oo magaalada muqdisho ay ka soo degeen ciidamo ka socda dalka Turkiga kuwaas oo qayb ka noqonaya dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab. madaxweynaha ayaa sheegay in ay run tahay in ciidamo ka socda dalka Turkiga ee magaalada muqdisho soo gaaray, isla markaana ay qayb ka noqonayaan howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab, sidoo kale tan ay fariisimo ku yeelan doonaan qaybo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wax laga weydiiyay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalmihii la soo dhaafay ama dadkaba ay ku dacaayadeynayeen in madaxweynaha in askartii ugu badneed iyo hubkii ugu badnaa uu geeyey qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, maadaama halkaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay beeshiisa degto. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay, balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in gobolka Shabeellaha Dhexe uu yahay halka ugu weyn ama furinta ugu weyn ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab uu ka socdo, isla markaana ay muqadas tahay in al-shabaab halkaasi kow laga xoreeyo kadibna loo jeesto gobolada iyo deegaanada kale ee al-shabaab kaga sugayeen gobolada Soomaaliya. madaxweynaha ayaa warbixinta sidoo kale waxa uu ku soo bandhigay in hadda uu marayo howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab meel fiican, isla markaana ay al-shabaab markaan ay gabaabsi si yihiin. waxaanu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in mar kale ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed maalmaha soo socda ay jab weyn gaarsiin doonaan kooxaha al-shabaab, maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku faanay ama uu saraakiishan hordhigay in uu wax ku bedel ku sameyn doono maalmaha soo socda golaha wasiirada Soomaaliya iyo guud ahaanba ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan. waxaa la filayaa in maalinimada khamiista ay Britool ay soo baxaan warqado isku shaandheen iyo magacaabis isku jira kuwaas oo lagu sameynayo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale golaha wasiirada Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu ku faanay in haddii uu isbedelkan ku sameeyo saraakiisha qaybahooda kala duwan iyo golaha wasiiradaba uu wax weyn ka imaan doono howlgalka ka dhanka ama dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab, isla markaana ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ay hadda kadib u jeesan doonaan furimaha hore ee dagaalka aan dib loogu soo jeesan doonin al-shabaabna meelaha ay joogaan bacdi loogu daadan doono. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamada Turkiga oo keenay Soomaaliya wax laga weydiiyay waxa uu sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab, isla markaana loogu xoreynayo deegaanada degmooyinka ay kaga sugayeen gobolada dalka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana sheegay in ciidamadan Soomaaliya Turkiga isu dirtay ay aad u muhiim ahayd, maadaama kooxda maalmihii la soo dhaafay ay u muuqdeen kuwa soo xoogeystay dibna ula wareegayay meelihii hore looga saaray kooxda. haddii ay tahay la soo gaarto waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ila channelka, like ii saartid si aan u helno saaxiibo badan oo adigoo kaleeta. aad iyo aad u mahadsan tahay.